بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلهي بش عيدد بريها عيدد إلهي خير كيد هاي النصيو dhibaatooyinka ilaahayna ha inaga dulqaado dhulkeennana nabadgelyo ilaahay ha siiyo cadowga inagu soo duulaya had iyo jeerna ilaahay ha inaga qabto guulna ha naga siiyo walaalayaal maanta idinkuma dheeraanayo had iyo jeer waxaan ka hadlaa dhibaatooyinka Soomaalida ummadda Soomaaliyeed haysata iyo halka ay moogtahay asbaabuhu ay yihiin iyo waxa moogtahay ay isku geysanayaan iyo waxa moogtahay ee loo baahan yahay iman ka hadla maantana waxaan ka hadlayaa waxa moogtahay aad iyo aad u qaaliya dhibaatooyinka waxa u geystay asalkeeda hore maaha maanta waxa weeye dadka Soomaaliyeed ee asalkiisa ah ee hoos loo dhigayo ee la yani maanta hadii ay aanan hoos loo dhigin meel sare in gaarsiin lahaa Europe to civilization kan iyo development kan ay gaadhay qarnigii 18aad kama horeynin laanna waxay uga horeynin industrial revolution ka waqtiga la asaasay weeyaan la sameeyay wax warshad sanaacad warshadeed la sameeyay weeyaan Ingiriiskana u horeeyay oo sameeyay adduunka kale oo dhan wax alla waxay haayeen ma jirin taa waxay markay industrial revolution kana sameeyeen ay bilaabeen waxa ay masaanicdii ay sameyn lahaayeen wixii ay moogtahay u baahnaayeen ay naga soo doonteen inoo guumeysteen Africa oo dhan iyo Asia oo dhan ay u yimaadeen ay u guumeysteen ay ka mid tahay dhuxusha xadiidka naxaasta dahabka maxaan ku raay benziinka petrolka gaaska yani ma soo koobi karo wax alla wixii ma ogtahay macaadin ee ilaahay dhulka galiyay oo dhan oo dhulka uga jirin inay naga soo doontaan oo maxaan ku raahdaa inuu guumeystaan naga gurtaan si ay nooga gurtaan ay guumeysi nagu bilaabeen marka waxa weyn dadkii waxaas daba sameyn lahay halka ka horeeyay iyaga 800 sanadood 1000 sanadood ka horeeyay ee maxaan ku raahdaa horumarka hayay ee horumarkaana gaarsiin lahaa kolkan hoos u dhignay ee guumeysanay way dadkaas waayo ma magac dhabaye waad garanaysiin magac dhaba xataa inaan ka bedelnaba qaayaba sharciya ama magac in aan magac sharafeed ka dhigno oo ma ogtahay aan taxgalino iyo loo baahan yahay sababtu ay tahay مثلا hadaan ka soo qaado waxyaalaha ay sameynayaan sanaacada warankay sameynayaan 800 oo sanadood horteed baan ku dagaalami jirnay Axmed Gurey kolka uu dagaalamayay waran iyo gaashaan kaas wuxuu ku gaaray ilaa iyo Aksum in Cabdilla Xasan waxa uu ma ogtahay ku gaaray ilaa halkaas qori ma uu haysan waran iyo gaashaan ka yahay uu ku dagaalamay 3 dawladood la dagaalamay Ethiopia iyo Talyaani iyo Ingiriis علي kala geeyay wuxuu halka ku gaarsiiyay raga qolooyin aad garanaysaan inaan magac dhabay imika ma doonayo ya oromadaba waxaanu been sheegiba ama aanu qariniba oo waqooyi degana inuu kaga kaxeeyo waran iyo gaashaanka kaga kaxeeyo ilaa halka ku gaar ayaa sameynayay waranka iyo gaashaanka dadkaas sameynayay toorida ayaa sameynayay dadkaas sameynayay kabaha ayaa tolayay dadkaas tolayay biyaha wax aan ku kaydsano muqdisho ma ay haysan baanbada kolka intii isticmaalkii hortiye waxay ahaayeen aashuun uu isagu sameeyay iyo lagu kaydsanay biyaha moofada kolka la dubayo moofo wax la yiraahdo ma ogtahay lagu dubo moofada iyo sameeyeen oo ma ogtahay aan ku duban jirnay war waxa soo dhan kolka ay sameeyeen suunankay sameyn jireen aan dhexda ku xidhayno waxa ay dhan kolka ay sameynayeen birta sida loo dhalaaliyay garanayeen Yurub ma gaadhin waqtiga ileen tooridan iyo gaasha warankan iyo waxan kolka ay sameynayaan birtan qudadkeeda ma ay gaadhin baa Yurubtu helisteedan iyo dhulka ay ka heli lahaayeenba dhagaxaas bir ka dhigayeen ay kolkaana dalaalinayeen ay ma ogtahay toorida iyo waranka iyo gaashaanka iyo nooga dhigayeen golxabka iyo marka
dee haddaba haddii ay saa u sii wadi lahaayeen meel sarayna gaadhsiin lahaayeen. waxaan jecelahay maanta inaan in yar idin tuso kabaha ay tolayeen halka ay gaadhi lahaayeen haddaanan guumaysanin oonan eryanin oon maxaan ku idhahdaayey waxaan ku samaynin. kabaha maanta guryaha lagu tolayo waa eeshiyada, waa kabaha aan ka iibsano dukaakiinta waaweyn ee qaaliga ah. noocoogaan ku idin tusaya iyo sidii loo tolayo iyo dadka tolaya. marka halkaa waxaabay noo samayn lahayn maanta kama iibsaneen buudhadh la yidhaaho dakaakiin aan inagu furannay oy iyagu keeneen oon ka iibino dadka iyaan yeelan lahayn. bal waa kaasay in yar daawasiiyo bal idinkoo iga raalli ah. waka wakaasay bal daawada kabaha iyo kuwo kasii qiimo badanba wakaa tolaya. ma aragtaan? marka kuwa kasii qiimo badanna aan idin tusi leeyahayna waxa weeyaan Lenteyden voima, se on kehuja, haleja, hastuttelua ja kannustavaa ilmapiiriä. waa kuwa guryaha ku samaynaya. alfiiriya waa guryaha waxay ku samaynayaan warshada maaha. waa kabaha qaaliga ah ee maanta annagu suuqyada ka iibsano wey. waxa ay samaynayaan waa guryahay dhexdoodii maaha warshado. waa idinkaa fadhi arkaya dhulka ku fadhiyo uu googoynayo. waa kaa marka walaalayaal